Microsoft Excel waa barnaamij qabta hawlo kala duwan siiba xisaabaadka ayna hormarisay ama ay soo saartay shirkadda Microsoft kuna shaqeeya operatorada kala duwan sida Windowska, Mac-ga, iOS iyo waliba mobilada Android-ka. Wuxuuna ku dhisan yahay rows iyo columns kala duwan oo loogu talagalay in lagu habeeyo daatooyin kala duwan ama xisaabaad kala duwan. Sidoo kale aad u isticmaali karto qaab ganacsi ah kuna suurtagelinaya inaad si fudud u maamusho ganacsigaada. Waxa uu ku dhisan yahay qaacidooyin aad iyo aad u fara badan, muhiimna u ah qof walba oo isticmaala barnaamijkan. Laga yaabee adiga daawanaya muuqaalkan inaadan garanayn qaarkood, laakiin ka walwali koorsadan ayaad ku baran doontaa insha Allah. Excel formats waa warqadda caadiga ah Excelka. Waa warqadda Excel ah laakiin ay la jirto micro. Waa Excel binary workbook, waa Excel chart ah, waa template-ka Excel. Ka hortagida dokumentiyada si aad uga hortagto in lagula isticmaalo Excel spreadsheet-ka, waxaad u baahan tahay inaad password ku xirato si aan loo furin, si aan loo shargarayn, si aan wax looga bedelin. Laakiin ogow in laga saari karo password-ka iyadoo aan loo baahnayn fasaxaada markii laga reebo kan lagu furayo dokumentiga. Taa micnaheedu waa haddii uu dokumentigaadu open yahay ama uu furan yahay waa laga bedeli karaa wax walba, laakiin haddii uusan furnayn waxba lagama bedeli karo. Sidoo kale ogow laba fayl oo isku magaca hal mar lama furi kartid gudaha Excel. Sidoo kale halkan waxaan kugu soo gudbinayaa Excel versions. Waxa ugu horeeyay Excel 2.0 oo ujeedada xal u saar ku qoran tahay 3.0, 4.0, 5.0, Excel 95, Excel 97, Excel 2000, Excel 2002, Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013 iyo kii ugu dambeeyay oo ah Excel 2016. Intaa kadib waxaan rajaynayaa inaad hordhac wanaagsan ka haysatid Excel. Casharka xiga ayaan ku qaadan doonaa qaabka loo soo download gareeyo iyagoo website-da laga helo. haddii aad u aragtay muuqaalkan inuu yahay mid faa'iido u leh bulshada inteeda kale, fadlan la sii wadaag kanaalkana subscribe garay. Sida idin nabadgelyo. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.